Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawada muuqaalkeena maanta waxay ku saabsan yahay how to expression and understanding English. Sida loo muujiyo fahamka Ingiriiska. Sida loo muujiyo Ingiriiska oo ah inaad fahantay in kala. For example, waxay noqon doonaa tusaale oo do you understanding? Do you understanding? Ma fahantay? Do you understanding? Ma fahantay? Do you understanding? Ma fahantay? Are you know what I'm saying? Are you know what I'm saying? Ma fahansantahay waxaan leeyahay ama taqaanaa ama do you know ma garanaysaa what I am saying means I am saying u taagan tahay means I am saying macnaha ma fahansantahay what ma fahansantahay do you know what I'm saying? Do you know what I'm saying? badanaa waxa isticmaala dadka Afrikaanta black culture kaliya ayaa badanaa isticmaala. Do you know what I'm saying? Sometimes waxaan ku leeyahay ama what means macnaha means macnaha what means baa laga wadaa. Haye takarta are you following me? Are you following me? For example qof baad sheeko wadii waxa aragtay asagoo xawaa yara baxay kaas waxa ku tiri are you following me? Meela socotaa. Are you following me? Meela socotaa meesha mariyo. Haye have you got it? Have you got it? Have you got it? Have you got it? Idan maxay tahay? Waa isku mid. Do you understand it? May fahansantahay macnaha ma fahanto wala wada macnaha. Hey, got it. Got it. Idan maxay tahay? Waa sidoo kale oo ah may fahansantahay. Haye for example qofka waad maqlayso ku dhahay laakiin ma fahmin. Hal badan badan ka saaraysa. Taasu macnaha common maaha laakiin tan common maxaa weeye what marka fahmi qofka marka la leeyahay kala macnaha for example what I don't understand ma fahmi waxa ku hadalsinayo oo ma fahmay soma what do you mean maxaad la jeedaa macnaha what do you mean macnaha kood maxay qof yaan dhahay koostaas waxoogaa badanaa ma fahna waayo waa anshax mala macnaha laakiin waxa aana ama common ina dhahay what ina dhahay tan kale waxay noqonaysaa I don't understand ma fahmin anigu I don't understand anigu ma fahmin. Haye what do you mean macnaheed macnaha what do you mean maxaa u jeedaa I'm not following you anigu kuma raacsan ama kuma fahansanin ama kulama socdo daasi waa dhihi karaa I don't get it waxa waa isku mid ayagoo dhan waa isku mid I don't get it macnaha taa doonta isticmaali kartaa I don't get it anigu kulama socdon ama kuma fahmin I don't get it kuma fahmin. Haddaba intaasoo dhan waxay ahaayeen su'aalo. Haye maxaad ku jawaabi kadhaa maraf maxaad ku jawaabi kadhaa haye jawaab waxay noqonayaan sida soo socda I understand. Look fascinated. I understand. And look fascinated. I see. I'm kula socdaa. Waan u jeedaa. Waan ku fascinated. I understand. Waan fahmay. Waan kula socdaa. I got it. Maxay tahay? Ayaduna waa sidoo kale I understand it. Waan fascinated. Haye I got it. Waan fahansanahay waa isku mid labadaba isku mid waan fahansanahay oo kula socdaa labadaba isku mid. Haye got waxay tahay waa lagu dhawaaqaa ama waa lagu hadlaa balse lama qoro ha qoran weli qof intuu ku yiri do you understand ma fahantay got ha oran bas waxa dhihi kartaa I understand I see I get it I got ma dhihi kartaa laakiin catch maxay tahay waa macnaha waa ku fahansanahay weey oo waa fahmay laakiin lama qoro oo qoritaan ma aha laakiin wax hadal suuqado macnaha waa lagu hadlaa bas waa speaking bas weey waa lagu hadlaa bas laakiin lama qoro. See you again. Peace.